taniyo intii la bilaabay baahinta dastuurka cusub ee weli qabyada ah ee loo diyaarinayo Soomaaliya ayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Britain waxa ay ka doodayeen dastuurkaasi cusub ee loo soo bandhigay iyo qodobada uu dhigayo waxaana arrimahan ku saabsan dastuurka qabyo qoraalka ah ay kala socdeen warbaahinta gaar ahaan telefishinkan caalamiga ah Universal haddaba waxaan la kulmay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ku nool dalkan Britain gaar ahaan magaalada London waxaana aan weydiiyay noocyada xisbiyada siyaasadda ee loo baahan yahay iyo waliba waxyaabaha ka reeban asxaabta siyaasadeed ee la sameyn doona qaarkoodna waxa ay ku jawaabeen dhammaan daawayaasha waan salaamayaa ciid mubaarak aan idin leeyahay bishii khayrka badneed Carafa khayrkeeda Ilaahay na waafajiyo waxa su'aasha ay tahay oo aad u qiimo badan jawaabteeda Soomaaliya in ay xisbiyaasha la dhiso waxay ku qoran tahay dastuurka ku meel gaarka ah iyo dastuurka 60 oo dastuurka ku meel gaarka ah laakiin maxaa hadda yaalo wadankii nabad ma aha dawladda ku meel gaarka kuma aysan guuleysan nabadda intay dhaliso koonfurna saad ogsoontihiin dagaalo xooggan qabsaday marka xisbiyaasha ma noqon karaan xisbiyaal oo gacan ku rimis ah waa inay noqdaan xisbiyaal leh legitimacy ama dadkii ay soo doortaan degmo tuulo gobol 10 milyan codkooda ku hadli karo runtii asxaabta siyaasadda la sameeyay waxaan jeclaan lahaa inay noqdaan kuwo ku dhisan aqoon iyo Soomaalinimo in iska daayo xisbiyadan qabaa'ilka lagu sameeyay iyo maamulada la sameeyay qabaa'ilka oo rabo in qabiil walba inuu maamul sameeyo dawlad sida anaga inaad tusaale u noqoto European Union wadamada ku nool kale oo sameeyay hal caalam iyo hal lacag hal wacd marka anaga Soomaaliya inaan maanta qabaa'ilo aan wax ku raadino 20 sano kadib waxaan u arkaa wax xun oo fiicneen waxaan oran lahaa qofka Soomaaliya siyaasadeeda doonayo inuu qof wadani ah oo daacad ah oo wax lagu aaminayo amaanadana ka soo bixi karo taas oo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim anoo ka faa'iideysanayo fursadan qaaliga ah horta ciid wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan xisbiyadan ka hadlaysa ay weydiiso macnaan kaaga sheekeeyo aniga waxay la haboon aragtidayda run ahaantii horta ummadda in loo soo bandhigo horta wax la baro u baahan 20 sano ay dib u dhacay ummad 20 sano gadaal u dhacay xisbi iyo dastuur horta marka hore in loo soo bandhigo wixii la baro ay u baahan ama dadkii soo qoran lahaa ama dadkii wixii soo diyaarin lahaa kadib ummadda Soomaaliyeed wixii loo soo bandhigo xisbigana waa taqaanaan xisbigan 60kii ayaa waxaan marka hore la sameeyay niman dhalinyaro sameeyeen oo wali aqoontooda heer sare ahayn ayaa calanka keenay wuxoodii maanta dhulka lagu jiiday aniga ahaan waxaan dhihi lahay qabaa'ilka waxa qabiilka aad nagu dawadaan iyo 4.5 iyo waxyaalaha la midka horta inay joojistaan waxa loo soo xulan karaa waa easy aqoon baa lagu soo xulan karaa nin kasta aqoontiisa inta gaarista lagu soo xulan karaa meesha kaliya qofka bini'aadamka lagu kala bixi karo waa aqoon maanta ummadda Soomaaliyeed dibadda ay soo aaday ilaa adduunka meel kasta joogaan waxaan u maleynayaa waagii hore hal qof baa la soo diri jiray halkii qof ayaa wadanku noqon jiray laakiin maanta kumanaan qof baa soo baxay aqoontii waa badatay dhalinyaro badan hadda wasiir laga dhigay oo ujeedaan aqoontaas lagu kala saaro dastuurka cusub oo qoraalka hadda ku soo socda waxaan aniga aan qaba fikradda ah in lagu soo xulo qof aqoon yaqaana oo lagu soo xishin qof qabiil yaa dadka wax u qaban kara taas ayaan fikraddaas ayaan qabaa qofkaas waxaa ka reeban wax la yiraahdo inuu sameeyo wax qof aan ummadda soo dilin inuu waa qof ummadda wax u qaban kara waa inuu noqdaa uusan qof qabiil ku socdo uusan noqon baabu horta run ahaantii marka hore baadaan ku weydiiyay su'aasha horta dastuurkan hadda la qorayo aad sheegayso hadda qabyada horta marka ugu horeysa yaa qorayo iyada su'aal haddaan u soo noqdo su'aashaada adiga aad i weydiisay run ahaantii waxay ku ficnaaleen dastuur ama sida haddii xisbiye la sameynayo xisbiyada inay noqdaan xisbiye dad aqoon leh maadaama baryahan la muddo 20 sano aan ku dhex jirnay dhibaato rafaad يعني ما لو بحسب يلا فرع وحبال السمينا وحين هذا رأيته وحوربوده دت مارتي مقع قبيل أما في مت أما مقع مارتي أنا يعني شقة وقلبي مركز دتك وأنا النقدان دت أقوان سياسة اسكو وذا كنتي وكلنا نوع يتكلم كلا قبيل نقون كرو إفرت النقون كرو بسم الله الرحمن الرحيم أنا قلت وحيلتها هاي دستور كعصوب الصومالي الله سمينا ضد جوار الصومالي وشك القواء inay jiraan marka dastuurka la sameeyay horta in maaragtay faahfaahin dheeri dadku ay ka helaan waxyaabaha ku qoran iyo maaragtay waxyaabaha uu ka hadlayo in maaragtay dadka loo faahfaahiyo oo wax aad muhiim u ah dadku inay wada ogaadaan ay tahay Soomaaliya hadii wada asxaab siyaasadeed loo sameeyay kulli muhiim ah dib u inay ka wada jirto arrintaas marka
waxay ila tahay in asxaabtaas la sameeyo way fiican tahay laakiin in lagu soo xusho maaragtay dad aqoon leh karti leh diin leh inay noqdaan dadka la soo xulo aysan noqon dadkii 20 sano ummadda maaragtay dhibaatada iyo dagaalka iyo ku haya barakacay haddaba sidaa aad arkayseen ayay dadka Soomaalida afkaartooda ay ugu kala duwan tahay xisbiyada siyaasadda ee la sameyn doona qaar aad u fara badan oo aan la kulmin ayaa laga yaabaa in afkaar kala duwan iyana ay maanka ku hayaan Ibrahim Umar Baafe wararka Universal London